kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka maaweelada dhaleenka oo ka daawataan marka soo booqataan channelkan ku leenahay YouTube ee dhalaan Koreeye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekadan toddobaadkan idinku hayaan caruurey waxay ku saabsan tahay Kawsar iyo dardaarankii hooyadeed ase ku bilaabo ee waxa la yiri beri hore waa beri hore ee waxa jiray gabadh yar oo Kawsar loo oran jiray waxayna la noolid hooyadeed oo kaliya iyadoo daayar ku jirta ayuu aabaheed dhintay waxa nolosheeda caruurnimo soo karisay hooyadeed aadayay u jeclayd oo waqtigeeda inta badan hooyadeed ay la qaadan jirtay markay banaanka u ciyaar tagto waxay hooyadeed u keeni jirtay ubaxyo kala duwan hooyadeedna way jeclayd mararka qaar waxay hooyadeed weydiin jirtay halka uu ku maqan yahay aabaheed oo iyadoo aan ogeyn ama ilmo yar sabiya dhintay hooyadeedna waxay ugu caqli celin jirtay waxa laga yaabaa inuu ka mid yahay xidigaha cirka ka ifaya ee leerka iyo iftiinkeena soo gaarsiinaya waxa ahayd ilmo yar oo aan intaa wax ka badan ogeyn nolosha saboolnimo ee qoyskooda haysatay waxay ahayd mid meel walba ka muuqatay Kawsar waxay lahayd hal toob oo kaliya kaasoo had iyo jeer gashan jirtay waxay haysatay hal shay oo kaliya ku ciyaarto waxay sidoo kale kaba u ahaa kaba qoriya oo hooyadeed u tashay kuwaas oo aad u xanuun badnaa inta badanna lugaha ka mudi jiray waqtiga ay soconayso oo ha kuwa dhib badan nolosheeda ku hayay balse xaaladda iyo nolosha saboolnimo ee ku jiraan ayaa sidaas ku qasabtay Kawsar iyo hooyadeedna waxay ku qanacsanaayeen wax alla u qadaray si kasta oo nolosha uga adkayd marna wajigeeda muruga lagama dareemi jirin waxaana ahayd gabadh yar oo farxad badan maalin maalmaha kamid ayay hooyadeed bukootay Kawsarna magaalada ayay aaday si ay ugu soo iibiso dawo balse dariiqa ayay ka heshay kabacas oo iftiin iyo dhalaal kala duwan bixinaya aad u qurux badan Kawsarna aad u cajabiyay intii soo qaaday ayay guriga la timi hooyadeed oo bugta ayay tustay ku tiri hooyo daawo waxaan soo helay kabahan quruxda badan leh hooyadeedna waxay ku tiri waxa laga yaabaa inay qof ka halaabeen ama uu qof meel dhigtay waxay ku tiri u malayn maayo haddii uu qof lahaan lahaa uu qaadan lahaa kartoon inta uu dhigo kagama tegeen waxay ku tiri waxa laga yaabaa inuu ilaabay mase dooneen inay sidaa maqasho waxay ku tiri hooyo kabahan cidna kama tegin oo aniga ayaa iskale intii soo kacday ayay ku tiri maqal haddii duruufta nolosha ay ugu kaliftay inaan kaba wacan ku iibin kari waayey kama dhigna taas inay kuu ogolaanayso in kabaha dadku leeyihiin aad dariiqyada ka soo qaadato waxaan doonayaa inaad kabahan halkoodii ku celiso oo aanad weliga gashanin Kawsar aadayay hooyadeed u jecleed waxay maqashay amarkii hooyadeed balse kabihii ma celin ee waxay ku hoos qarisay sariirta ay ku seexato waqtiga ayay isbedeliyay sanado badan kadibna maalin maalmaha kamid ah iyadoo banaanka ku maqan ayay ku soo laabatay guriga Kawsar hooyadeedna ma helin wax yar kadibna waxa uu cadaatay in hooyadeed ka tagtay sida aabaheedba uga tegay iyadoo murugaysanayay guriga ka soo baxday say aaska hooyadeed oo dhimatay uga qayb qaadato balse waxay soo xidhatay maalintii aaska hooyadeed kabihii hooyadeed ku tiri weliga ha xidhan dadkii aaska ka soo qayb galay oo dhaqan u leh maalinta murugadu jirto inay dhar madow soo xidhaan ayaa aad uga xanaaqay kabaha ay xidhan tahay waxay ku yiraahdeen ma hooyada oo meyd ah oo hadda aaskeedii la dul joogo ayaad kabaha noocan soo xidhanaysaa runtii waa ixtiraam darro wax yar kadibna waxa timi islaan maalqabeena oo kamid ah dadka deegaanka ku noola taasoo maqashay geerida ku timi hooyada dhashay Kawsar aadayay uga xumaatay intii aaska ugu dul timi ayay Kawsar ku tiri aniga ayaa ku xanaanaynaya ku korinaya tan iyo intaad ka gaadhayso waqti aad noloshaada ku filnaato waad ogtay oo cid kale ma haysatid dadkii aaska joogayna aad
ayay ugu farxeen waxayna kula teliyeen Kawsar inay islaantan maalqabeenka ah raacdo lana noolaato intay ka gaadhayso waqti iyadoo ay nolosheeda kelideed maarayn karto Kawsarna way yeeshay sidaas ayayna ku raacday islaantii maalqabeenka ahayd waxay ahayd islaan wanaagsan waxay isku diiday inay u xanaanayso Kawsar sida qof wanaagsani ilmo yar oo agoon iyo raja u xanaanayn lahaa waxay ku qaaday faraskeeda sida baabuurka oo kale u samaysan waxayna geysay guriga ay lahayd markii guriga keentay ayay ku tidhi kabahaad gashan tahay waa kuwo wasakh badan maanta dhanna waxaad ku joogto ood ka qayb gashay aaskii hooyada iska tuur aniga ayaa kaba fiican ku keenaya Kawsar aad ayuu xanaaqday waxay tidhi kabahan weligay ma tuurayo muddo badan ayaan qarsanayay maanta ayaanan xidhay waxay islaantii mar kale ka dalbatay oo tidhi kuwan guriga kuma dhex joogi karaysid iyadoo aad u xanaaqsanayay kabihii ku daafada ku tuurtay balse marnaba inay sidaas samayso ma doonin oo waxay ahayd kaba ay aad u jeceshahay tan iyo marnaba aan maskaxdeeda ka bixin marba marka ka dambaysana Kawsar way sii koraysay oo way weynaanaysay iyadoo nolol fiican iyo xanaano heshay wanaagsan islaantuna waxay u soo iibin jirtay wax kasta ay jeceshay maalin maalmaha kamida ayay u soo iibisay kaba qurxoon balse markii ay furtay ayay eegtay way aragtay waxay tidhi waa maxay kabahan waa kuwo buluuga anigu kuwan ma doonayo weligayna ma xidho mana jecli intii si xadaram daraa u tuurtay ayay sariirta gashay iyadoo ooyeysa waxay sanado badan iyo muddo dheer u murugaysnayd kabihii casaaya laga tuuray waqti dambana waxay noqotay gabadh weyn oo waqtiga iyo waayaha ayaa koriyey balse marba marka ka dambaysa waxay sii noqonaysay inan kibir badan oo madax adag wax kastoo islaantani u qabato ayay dood ka keeni jirtay dharkay u tasho ayay ku tuuraysay iyadoo odhan jirtay waxaan anigu ma doonayo cunnaday u soo kariso ayay afka kaga dhufan jirtay waxantan kama helin oo mar rabo ee waxaad ii shiishaa baradho ama wax kale waxay noqonaysay gabadh aan ixtiraam iyo naxariis toona u lahayn islaanta abaalka u gashay ee caruurnimadeeda korisay balse waxay ahayd islaan wanaagsan oo aad ayay ugu dulqaadanaysay maalin maalmaha ka mid ayay ku tidhi kabahan way iga yaraadeen markastana kaba buluug oo foolxun ayaad ii soo iibinaysaa hadda waxaan doonayaa inaan ku raaco oo anigu aan doorto kabaha aad ii iibinayso adigoo aan ii soo iibin waxaad adigu rabto markay magaalada yimaadeen ayay daaqadda ka aragtay kaba cas oo dhalaalaya una eeg kuwii aaskii hooyadeed kaga qayb gashay waxay ku tidhi kabahan ii iibi islaanta ayaa ku tidhi kabahan waa kuwo ixtiraam daran meel kuma tegi karno hataa aas kale kagama qayb geli kartid dadkoo dhanna kelida ayay ku fiirinayaan ee kabahan madow soo qaado way diiday waxay ku tidhi haddaanad kabaha sii iibinayn anigoo kuma raacayo oo isma naqaano islaanta wanaagsan oo aad uga xun amarka iyo dhagaadayga inanta yar ayaa ku qasbanaatay inay labadii kababa wada iibiso kuwii madooba iyo kuwii casaayintaba waxay iyadu xidhan tahay kaba daran oo adag oo haya kartoomadii culayska badnaa ayay kelideed sidaa Kawsarna iyadoo ku xaragoonaysa kabaha quruxda badan leh ay gashantay ayaan iyadoo waxba sidin iska laafyoonaysa islaanta oo laguhu damqanayaan aadna u murugaysan ayaa soo gaadhay guriga maalin kadibna waxay ku tidhi waxa dhintay qof jiiraankeena ah geeri ayaynu ka qayb gelaynaa ee soo gasho dharkaaga soona xidho kabaha madow balse way diiday waxay ku tidhi waxaan xidhanayaa kabaha cas ee dhalaalka badan leh iyana waxay ku tidhi mayaha xidhan markii dambena intay soo xidhatay toob weyn oo madow ayay hoosta ka gashatay kabihii dhalaalka iyo casaanka badnaa si ay uga qariso islaanta korisay ee nolosheeda kafaalada qaadatay markiise aaska la dul yimi ayay mar keliya toobkeedii kor u faydmay waxaana soo baxay kabihii casaanka badnaa ee qarinaysay dadkii geeridu ka dhacday ayaa mar kale ku tilmaamay tu ixtiraam daran waxay ku yidhaahdeen geeridii hooyada ayaad ixtiraami weyday maantana aaskan kale ayaad ixtiraami weyday soo ma ogid inaysan dhaqankeena ka mid ahayn marka aaska iyo geerida la joogo in la soo xidho kabacas maxaad sida tan u samaynaysaa islaantii korisay ayaa u timi waxay ku tidhi waxaad tahay tu abaal daran
qalbi daran naxariis daran waan marnaba ay maqlayn maxaa dadka horteeda igu fadeexadisay waad iskaga indhatiraysaa abaalka iyo wanaagga aan noloshaada kuu galay balse intaysan hadal ka dhammayn waxay soo gelay aaskii wiil dhallinyaro ah oo si wanaagsan u labisan kabaha ay xidhan tahay Kawsar ayaa soo jiitay wuxuu ku yidhi kabahaagu qurux badana runtii si ayaan uga helay waxaan u malaynayaa inaad qobka ciyaarka ku wanaagsan tahay ee ma samaysaa way isku dayday oo kor ayay u booday iyadoo ku dayaysa inay ciyaarto kabaha ayaaba kor ula booday waxayna mar kaliya joojin waayeen qobka ciyaar iyo jaas marba marka ka dambaysa ay kor ula sii boodayeen inkasta oo aysan Kawsar sidaas doonayn madaxuna daalay dawaqday haddana waxay joojin kari weyday ciyaarta oo kabaha ayaa watay markii dambana wayba la carareen oo waxay ka saareen goobtii aasku ka socday wiilkii ayaa ka daba orday oo sidii soo qabo una qaban kari waayay muddo markuu daba ordayena markii dambe wayba ka luntay oo uu arki waayay mana joojin ciyaarta iyo jaaska kabaha ayaa la sii orday waxay jiirsiiyeen dhagxaan kayma iyo buuro kolba meel ayay ku dhufanayeen iyagoo xanuun badan ku haya aad ayay u qaylinaysay waxay lahayd ma doonayay caawiya balse waxay ahayd mucjiso iyo calaamo cidna aysan ka qaban karayn meelo badan ayay la jiidhay dhir qodxaan badan taar iyo biro wax kastana lugaha ayay ka mudayeen markastana way ooyeysay markii dambe ayay kor u qaylisay oo tidhi ma doonaya kabahan ee alla iga tuur waa kabaha baaran markaliya ayay kabihii lugaheeda ka baxeen iyana dhulka ayay ku dhacday iyadoo cagaha dhiig ka da'ayo kabihiina hare ayay isaga sii socdeen iyagoo ciyaaraya waan marqudha joojin jaaska iyo orodka iyadoo dhitinaysa qorina ku kutubaysa ayay guriga soo gaadhay markii ay ridda gurigooda ka aragtayna oohin iyo muruga ayay isqabsatay waxaana mar kaliya maskaxdeeda ku soo dhacay sidii sanadada faraha badan la ugu gafaysay uguna gardaroonaysay islaantii wanaagga u gashay ee nolosheeda kafaalo qaadatay waxay ku tidhi nolosheeda oo dhan ayaan kugu gafay waxaan doonayaa inaad cafido maanta laga bilaabo aniga ayaa guriga ka shaqaynaya aniga ayaa adiga wax ku keenaya waxaan doonayaa inaad iga raali noqoto gafka iyo dulmigan ka galayay abaalkiisa ayaan helay mar dambana ma xidhan doono kabihii casaa noloshaada waxaan raacayaa wixii aad doonto aad ayay islaantina u faraxday markii aragtay sidii Kawsar nolosheedu hore uga soo laabatay waxay ku tidhi raalli ayaan ka ahay inanteedii waxaan filayaa hadda inaad way arag tahay khaladkaasna noloshaada aan dib ugu noqon doonin tan iyo maalinta laga bilaabana waxay noqotay gabadh wanaagsan sidii ahaan jirtay caruurnimadeedii oo kale kadibna waxaa guriga ugu yimi wiilkii boqorka ahaa ee hore ay u kala lumeen wuxuuna u soo bandhigay dalab guur muddo kadibna aroos weyn iyo guur ayaa loo dhigay tan iyo maantana haddaysan dhimanin waxay ku nool yihiin nolol farxad leh sheekada tanna waxaan ka baranaynaa dhibaatada ay leedahay markaan dardaaranka waalidkeen hareer marno haddii bilowgii hore ay Kawsar iska tuuri lahayd kabaha sidii hooyadeedu sheegteen aysan weligeed gashateen waxaan oo kale kuma dhicin balse muddo kadib ayay hadda taa ogaatay intaynu tan iyo toddobaadka dambe ku kulmayno sheekada ku xigta waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo waqtigu ha idin wacnaado